dhammo baransataha iyo boqolaalka mudan iyo gabdhaha barada joogiya bahda daawanaysa iyo cid kasta oo warbaahida Soomaalida badweynta salaam baa xad weyn iyo baaq maan u diraya baridada islaamka iyo marka hore bulshay nabad marka xiga baloolay barakada quraanka iyo waxa diinta lay baray inaan boqorka caabudo nabiga uu baneeyay aan baxsanaha rumeeyaa boqoran hooyaday iyo aniga baashahay dhalay waalidkay barbaarsana baahi aanu noqonaa dhaqanka iyo buraanta iyo calanka buluuga baxsan dawladeena iyo bi'ada aan ku faana siyaasadaha berigana badi waxaan doorasaa bari wixii iimaan kara nabad lagu bariistiyo si barwaaqo loo helo baaq waxaan u dirayaa baalaha adduunyada bahwadaag Mareykana Britain iyo reer Yurub Putin inay heshiiyaan Suuriyana badbaadaa lagana bayro Falastiin annagana balaayada iyo bamkana la ka daaya dad bulaalinayaan baadka intaan dab lagu qaban oo saddexaad bug nagu dhihin bila aadanka oo dhami dadku laba u kala bixin tala biri mageeyda ninka beer dareeya marka loo baafin doona afarta abaadi gabaybayan hadalka ma u idhi sida bogasho cawleed oo ku onkaday bariisada baalqaadka maasada marka xiga balooli baahida sagaal qodob bulshadu fiirinayaan iyo qaar kale oo badan madaxweyne baabi burburkii markuu dhacay badda iyo turaabkaba niman boobaba jiro bililaqada qaayibay faragelinta belada madaxweyne baabi taa waxa ka sii baan waxa jira basaasiin calanka buluuga iyo ciidana bilicda la xogta intay ku bixiyaan u bandhiga shisheeyaha ku dhex jira bulshada idil bahdil iyo daciifnimo madaxweyne baabi taa waxa ka sii baan wadanka beesadiisii lacag soo baxdaba male kunkii oo bidhaan gabay baa laga helaa bakaaraha warshado baahi loo qabay iyo barakadiisii loo helo musuq maasuq baahiyo saboolnimada belada madaxweyne baabi taa waxa ka sii baan been looyaal qaran baabiyayaal qaran dhaqan biyayaal qaran bahbahlay afmiishaar iyo booli cunayaal isu baaqaba jira ee madaxweyne baabi taa waxa ka sii baan bayl cadii dalkeena iyo barbaartu way tahriibtaa si wadaniyad loo baro hadba xilalka soo baxa ha u badin diaspora ee madaxweyne baandhe taas waxaan u malaynayaa sugaantan balooley oo in aanu miidiyaha u marinay ummadda Soomaaliyeed madaxweynuhu inuu naga aqbalay maadaama uu baasaboorkii shisheeyaha celiyay marka aad baan taa ugu faraxsanahay afarta abaad iyo gabaybayan hadalka ma u idhi sida bogasho cawleed ku onkaday bariisada baalqaadka maasada marka xiga balooley baalqaadka maasada marka xiga balooley afarta abaad iyo gabaybayan hadalka ma u idhi sida bogasho cawleed oo ku onkaday bariisada baalqaadka maasada marka xiga balooley anigu biramadaan hayo bariga Afrikaan digo ciidan baaxad weyn oo burjigiisa laga boqo barigaan lahaan jiray kuwii aan bawdada u kabay oo u bilaabay gobonimo haday shacabkayga boobeen waxna aysan ii bixin South African baraniyo boqonqoyaal kale kuwa sameel ka soo baxay oo kaalintooda buuxiyay beerkaan ku ognahay waxaan ugu bedelaynaa mid ay nagu bogaashaan afarta abaadi gabaybayan hadalka ma u idhi sida bogasho cawleed oo ku onkaday bariisada baalqaadka maasada marka xiga balooli taas hadaan ku soo koobo iyo waqtigu guuriyaano soo koobaya maasada balooli aad bay u dheertahay waxaan ka soo qaatay qodobka koowaad oo ah wadanka beesadiisii lacag soo baxdaba male anoo qodobo fara badan kaga hadleeyay waxa munaasibadan ka quseeya wadanka beesadiisii lacag soo baxdaba male kunkii oo bidhaan gabay baa laga helaa bakaaraha warshado baahi loo qabay barakadiisii loo helo musuq maasuq baahiyo saboolnimadan belada madaxweyne baabi aad ayaad u mahadsantihiin waana ku faraxsanahay maanta inaan maasada balooley oo sagaal qodob ka hadlaysay iyo barigaynu awoodda lahayn dawladihii aynu biixiyaha u kabnay ama dawladnimada iyo gobonnimada u dhalinay markaynu burburnay sida qaarkood aynu la dhaqmeen iyo kuwa abaalka aan u galay wax ka soo celiyay iyadana suugaanta waa ku xusayaa aad baad u mahadsantihiin boqolkiiba boqol aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Maxamed